daawadayaal barnaamijkeena waxa aan idinkugu soo gudbinaynaa atirishada caanka ah Kangana Renard oo afka kala furtay isla markaana difaacday atirishada Debika Badakon kadib markii dil loogu hanjabay. Kangana Renard waa atirisho karti badan taasoo aan la gamban fikradaheeda iyo ficladeedaba waxayna si rasmi ah u garab istaagtay Debika kadib markii filimka Batmavati dood badan uu dhexda ka galay. Haddaba waxa dhacday in mar kale Kangana Renard ay garab istaagto Debika kadib markii su'aal la weydiiyay taasi oo ku aadan atirishooyinka dhibaatada dhexda ka galaya. Kangana waxa la weydiiyay ka waran marka atirishooyinka dib ay dhexda ka galaan looguna hanjabo in nafsadooda la dhaafinayo sida Debika loogu hanjabay in la dilayo kadib markii filimka Batmavati uu muran dhexda ka galay. Kangana ayaa ku jawaab celisay ayadoo dhahayso waa khalad in atirishooyinka iyo dumarka laba in loo hanjabo oo nafsadooda la dhaafinayo. xaqiiq ahaan aniga waa aan isdifaacaya haddii la ii hanjabo ama la ii soo weeraro dumar kalena loo hanjabo sida Debika oo kale. Debikana waan difaacaynaa oo waan garab istaagaynaa ay tiri Kangana Renard. waxaan hore idinkugu sheegnay in walaashay xilligeedii iskuulka ay dhiganaysay wiil uu soo weeraray si shil ahna khatar u gashay nafsadeeda. sidoo kalena shaqadeeda dhankeeda superstar ayaa isku dayay in xabsi ama jeel uu dhexda iga geliyo. waa yaab bulshadana waa ay aragtay arintaasi kadib markii su'aal kale laga weydiiyay arrimaha hanjabaadaha waxaana ay tiri waa qalad isla markaana xadgudub ah waan dagaalamaynaa waan isdifaacaynaa dumar kalena waa aan difaacaynaa si loo yareeyo xadgudubka dumarka iyo waliba atirishooyinka ay tiri Kangana. waxaana ay wacad ku martay in ay garab istaagayaan iyada iyo atirishooyinka loo ka tirsan Bollywoodka atirishada caanka Debika oo dil loogu hanjabay. haddaba hadalkan ka soo baxay Kangana Renard ayaa imaanaya kadib markii siyaasi caan ah oo ka tirsan xisbiga talada ee dalkaasi Hindiya uu madaxa Debika iyo sidoo kale film soo saaray Sanjay Leela Bhansali uu duldhigay lacag gaaraysa 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka si madaxa looga soo gooyo labadaas ruux. daawadayaal intaas aynu barnaamijkeena ku soo gabagabeynayna.